munaasabad siyaarsara loo soo agaasimay oo lagu daafuraya adeega idahab ay soo kordhisay shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa maanta lagu qabtay Hotel City Palace ee magaalada Burco. munaasabadan ayaa waxay ahayd mid guud ahaanba kulmisay haldoorka bulshada ee gobolka Togdheer. ugu horeyntiiba waxaa ka hadlay munaasabadaasi lagu soo bandhigay adeegan cusub ay soo kordhisay shirkadani gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil ee gobolka Togdheer Maxamed Yuusuf oo ka warbixiyay adeegan iyo faa'iidooyinka uu leeyahay bulshooyinka Soomaaliland. Dahabshiil Group halkan uu ku daafuraya xafladan ugu talagalay inuu ku daafuro adeega idahab oo adeeg mobile banking ama mobile payment. adeegaas oo runtii imika muddo shaqaynayay horta marka hore waynu garanaynaa shirkadda Dahabshiil doorarka ay soo martay iyo marxaladaha ay soo martay. waxay Dahabshiil shaqaynaysa muddo ka badan 50 sano. ayaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer Axmed Cali iyo gudoomiyaha jaamacadda Burco Saleebaan Dirir Cabdi, gudoomiyaha jaamacadda Golis Cabdi Xakiin iyo oday Cabdi Cawir oo dhamaantoodba mahadnaq ballaaran soo jeediyay shirkadda Dahabshiil kuna amaanay inay kaalin mug iyo miisaaniyad leh kaga jirto horumarinta Soomaaliland. munaasabadan oo soo bandhig adeeg loo soo bandhigayo bulshada gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland waxa soo bandhigaya shirkadana ugu cusbay oo shirkadda Dahabshiil. waa shirkadda ugu weyn ugu ballaaran sidaan kullee anigu aaminsanahay geyiga Soomaaliland iyo Soomaaliya oo qolada suugaantu ay sheegtay. labadaasi waxay ahaayeen dayixii baa la koro weli awrka dooda haya, dunidii baa dalacdo weli dooga aan cunaya. Dahabshiil maanta wuxuu ka jawaabay dunidii baa dalacdo weli dooga weli awrka dooda haya. macnihii technology-gii ugu dambeeyay ee ninkii awrka raacayay uu miyiga ku helayo adeegii u dambeeyay dahab baa ka jawaabay. ومحمد علي أحمد كابي ورقة تلفزيون كما تحبنا نبولش تي في مقارنة برو.